ذكر وموعظة ونور فيه الحمد لله شفاء وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. آية أيها الأحبة، وآية لبابا قولي صدح يا صدرات سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى وحينو عديني أحكام تنوجنت والوالدات هوينكي وحدة لي يرضعن أولادهن وحنوجين ينعرور تودا، أما هنوجيان عرور تودا حولين كاملين لبسا ودميسترا لمن أراد أن يتم الرضاعة. عدي دوني سيني دميسترت نوجنت دميسترك أيها الأحبة واللبسا وياه قفك هل بلا نوجي لبا بلود نوجي صدح بلود نوجي ويوبنانته، لكن نوجنت كامل واللبسا وياه. وعلى المولود له كي وحلود علي وابه وحدشيسا هذا رزقهن وكسوتهن، مصروف كودا iyo marashadooda masruufkooda iyo waxay u baahan yihiin oo radbaxooda ayaa laga doonayaa maadaama lagu jiro fi zaman ridaaca وبال معروف si wanaagsan baa looga doonayaa iyadoo urfiga la ilaalinayo iyadoo si wanaagsan uu gudanayo arinta ayada. la tukallafu nafsun illa wus'aha, nafna laguma kallifo waxaysan awoodin. naf walba taaqay leedahay karaan bay leedahay waxaysan awood u lahayn dusha lagama saaro. la tudarra walidatun biwaladiha, hadibin ama laba dhimo hooyadii waladkeeda laguma dhibo, hooyada cunugeeda aan lagu dhibin. wala mawludun lahu biwaladihi, kii wax dhalay aabaha ayaan cunugiisa lagu dhibin. ilmaha ayaan la isku dhibin ayuha alxibba. labada qof inta badan markay kala tagaan ilmaha waxa weeyaan waa la isku dhibaa, marba kii dhinaciisa uu jiro ayaa midka kale waxa weeye ku dhiba. arintaasi ay sandicin ayuha alxibba. وعلى الوارث مثل ذلك، dhaxal sugihii aabaha la dhashay ama ehelka u ahaa haddii aabihii uu ka soo bixi waayo xilka isaga ama uu meesha ka baxo, waxaa laga doonayaa xilka inuu qaado laga doonayaa. oo nafaqadii ilaahay jalla jalaaluhu وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن uu yidhi isagu inuu la wareegaa laga doonayaa. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، ومسألة kale weeyaan ayuha alxibba. labadii waxay soo dhashay haddii ay doonayaan cunugii inay ka gooyaan naaska iyagoo raalli isaga ah oo waliba tashaawur sameeyay oo ka tashaday arrinta ayada, falaa junaaha calayhimaa, dushooda wax dambiya maahan. xaq bay u leeyihiin weeye, bal waliba talada laga tashanaya cunuga naaska ma sii nuugaa mise waa laga gooyaa, waxay dan u tahay maslaxa u tahay ayuha alxibba, ilmahay u tahay. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، iyadana waa mas'alo kale weeyaan. haddii aad doonaysaan inaad nuugma ka dalabtaan caruurtiina u dalabtaan, falaa junaaha calaykum, iyadana waxba culaysa ma aha. waxaad doonaysaan inaad haweeney kaloo caano leh duruuf kastaba ha keentee inay cunugeedii nuujisaad doonaysaan. wain aradtum haddii aad damacdaan an tastardicuu inaad nuujin aad ka dalabtaan haweeney kale cunugiina awlaadakum inay idiin nuujiso, falaa junaaha calaykum, iyadana dhibaato kuma jirto wey. idaa sallamtum maa aataytum bilmacruuf, waa haddii aad siisaan weeyaan wixii waxa weeye aad siin lahaydeen eed ku heshiiseen si wanaagsan weliba aad u siisaan weeyaan. wattaquu llaha waclamuu ana allaha bimaa tacmaluuna basiir. allah jala jalaaluhu wuxuuna leeyahay ilaahay ka yaaba. meeshii waa la kala tegay, shalay heshiis baa lahaa, waa la isjeclaa, ilaahay awlaad buu idin siiyey, waa la kala tegey. haddii la kala tegey ilmaha nuujinaysaan war ilaahay kaga yaabo yaan la isku jiijiidin oo yaan la isku dhibin oo
yaan musiibo iyo dhibaato ilmaha yarkaa yaan loo keeni weeyaan. waclamu waxaad ogaataan ana allaha bimaa tacmaluuna basiir. ilaahay jala jalaaluhu waxa laalihi wixii aad samaynaysaan oo dhan ilaahay waa u jeedaa weeyaan. idan ayuha alaxiba masalada ridaaca la yidhaahdo allah jala jalaaluhu waa raxmad weeyaan. caruurta loogu talagalay maamadu inay siiso 2 sano ayay kaamil ku noqonaysaa ridaacadu axkaamtu ay ka ratimaysaa. walihaada maamadu hadday nuujin weydo oo haweeney kale ay nuujiso 2 sano intaysan dhammaanin ka hor waxay u noqonaysaa 5 jeer hadday weliba nuujiso siduu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam. way nuujisay haddana way nuujisay haddana way nuujisay. nugmada lagu sheegayana cunugu naaska afka intuu geliyo caanaha ka jaqo oo afka waxa weeye isaga dantiisa ogala baxo haddana uu ku noqdo 1 saac bay ku nuujin karaysaa 5 goor oo mid walba waxa weeye isagu sidiisa uga dhargo. dhowr maalmoodna way ka dhigi karaysaa. maanta nuujisay maalin kale nuujisay maalin kale nuujisay oo mid walba hal ridaaca nuujisay 5 iyo wixii ka badan hadday nuujisay ayuha alaxiba cunuguna 2 sano uu ka yar yahay. ولهذا شرط لبد وحل أن يكون في حولين 2 سنة وحوي وين كل حشر وياه وحول نقنيسا ماما نقنيسا هوي نقنيسا أبيه عانها سببته وهانا أبو نقنيا وحل عليه وحيس كدلين ولا عليه نقنيا أيها الأحبة بل وحوي أبها عدي لدلت هدير بي نقنيسا ماما عدي لدلتنا يدر وحي نقنيسا هابرير بي نقنيسا. مسألة النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحا نسب كحرام تكويه كريبا بالرضاعة كريبا دتك أهل بين قنيا. ولهذا القرآن الكريم كإن بدن بعد كوار كيسا رضاعة وجائز في الأصل أيها الأحبة. إلهي مركو كهل وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وهو يمكن وحويان إذا نوجيوي إذا قبله أتكول على لودين نوجنت أتكول على لودين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا له كلها حق الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام حكسنا هذا ابنة حمزة إنه يد عليه الصلاة والسلام إنها ابنة أخي من الرضاعة. وحمزة ويا كبديس صبته حمزة وذا النبي عليه الصلاة والسلام ساسوك عليه النبي عليه الصلاة والسلام أم السلمة وحويري إنها لابنة أخي من الرضاعة. أنا جاي أبهد وأبا سلمة ثويبا أن وذا النجسي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيها الأحبة مسألة الرضاعة مع ماذا لشيء عنق حتى يكجدبتو قبل كلا أي نوجسه وشنجر أي نوجسه عنقي والله بس أنا أنجارين. مسألة وحن نقني أيها الأحبة عرورتاس عنقاسي لو ولا لوبيا ووحن نقني ولا الكودي حق الرضاعة أيو نقنيا أبيه دلينا عنها السببت وهانا أب أيو نقنيا. ولهذا أمنا عائشة رضي الله عنها وحدا كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات وأمركي دي هرويا ولا نسخي كدبنا النبي عليه الصلاة والسلام 5 jeer ومعلومات ووحويه نوغمدودو أي كحارنت النموبس أيو النبي عليه الصلاة والسلام كتي. إذن أيها الأحبة إلهي جل جلاله حقوق داسو سيي عرورت لبدا والدنا ووحوي أمرك كسيي إني حقوق دا إلاليان عرورت سي عرورت أيسون نقنين دوف لالو يا عرور هدوتان لو مارتي محوها يود هلينين. ولهذا هلا إلالي حقها سيساقع هلك علماء قارئ كقاتين إلهي جل جلاله قول كيس وحمله وفصاله 30 شهرا. وإلى هذا المركز لا يسكتره انت عنق علوش لغو وضعي انت لنوجينايو يغو كسو قاطي قوله تعالى حولين كاملين تا وحي دادين وصدن بلد بيدادين. ولهذا اللحبة هدو عنق وكل الشعون قاسي وعنق جرويان واحد بعتهنكم جرتو. إلهي جل جلاله وحن ودي سنين الصحة والعفو والعافين ودي سنين إلهي أولادنا انت اسك قنيسا انت اللي بعتو دحتالو توفيق يا خير بدن الله حد أولادنا الله هنا وبركي عملك صالحا إلهنا وفج بنا الجملة. أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن
الأشواق وفيه محاسن الأخلاق.